markii uu bilaabay inuu tiriyo tirada dadka ku dhintay iyaga oo ku safraya doomaha u kala goosha Kismaayo iyo Baraawe. Saaxiibkay waxaa ka luntay qiyaastii wuxuuse hubaal u tiri karaa dhowr qof oo uu wajahan yaqiin kuwaas oo geeridooda loo soo sheegay. Dhowaan ayuu yidhi waxaa la bilaabay in doontii safartaba laga soo sheego hebel oo saarnaa ayaa ku dhintay. boqolaal dhalinyaro ku dhow ayaa la tibaaxaa inay ku baxeen. Ka sheekaynta qisooyinka xanuunka leh ee laga soo wariyo safarka badda waxay ku timid markii aan saaxiibkay su'aalay haddii safarkayga xiga ee Baraawe aan ku aadi karo doon. Wuxuu durbaba la soo kacay la yaab dheegag leh maadaama uu ogaa inaan galti ku ahay Kismaayo. In yar kadib ayuu doortay inuu si degan iigu sharaxo dhibaatada doonleyda iyo ganacsatada qaadleyda u badan ku haysata safarka dhinaca badda ah ee isaga kala gooshaan labada magaalo ee Kismaayo iyo Baraawe. Dooman ayaa doorta inay shixnad badan oo qaad ah u daabulaan Baraawe iyagoo karaankooda isugu geynaya suurtagalnimada safarka aanay saadaashiisu caddayn maadaama ay adag tahay in dhulka la marsiiyo qaadka cabsi laga qabo Al-shabaab awgeed. Wadada kaliya ee u furan ganacsigaasi inuu sii jiro waa in la marsiiyo dhinaca badda, mana ahan Baraawe halka ay u sharaacdaan waxay gaaraan ilaa iyo Xamar iyo kasii shishe mararka qaar. Sida uu sheegay, qaadka ka yimaada Jubbaland marka laga soo tago Dhobley intiisa badan waxaa la soo marsiiyaa badda waxaana lagu keenaa dooman. Mararka qaar doomahaasi waxay usii gudbaan Xamar iyagoo dejinaya shixnado toos looga soo saaray Laamu, balse waa Soomaalida doonley kuwa halista ugu badan kala kulma ganacsigaas. Intooda badan waxay u sahan tagaan geerida, waayo ogaal iyo ogaan la'aanba waxay doortaan inaysan hakad gelin marnaba hawshooda. Dhibaatada jirta oo kaliya ma ahan aqoon buuxda u lahaashiyaha halka iyo helinka ugu fudud oo durbaba lagu gaari karo magaalo ka magaalo. Adeegsiga doomahan aan sidii loo baahnaa loo qalabayn iyo tandhaafka shixnadaha oo mararka qaar ka culus qaadkii loogu talagalay iyo gadgadoonka hirarka badda oo sida uu yidhi mararka qaar indhalahaan uga hortagaan ayaa sababta geerida sida joogtada ah looga soo wariyo xaggooda. Inkastoo dowladda Soomaaliya mamnuucday qaadka, haddana ugu yaraan uguma dhaqan gelin dalka oo dhan sidii looga baahnaa. Waxaa muuqata in ka ganacsigiisi uusan yeela doonin dhammaad, balse si uu sii jiro ay dartiis u dhima doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo naftooda u biimeynaya. Qorshahaygii ahaa inaan badda ku safro kolley hadda in badan iima tirsana, waxaase tiiraanyo ugu haysa tirada da'yarta Soomaaliyeed oo iyaga oo bad qaba subax ka mid ah subaxyada ka soo toosa aqaladooda kadibna gelinka dambe meydkooda loo celiyo guryaha si ahalkii dhalay ee xabaal ugu sameeyaan.